السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalaha Soomaaliyeed meel walba oo joogtiin aad iyo aad ayaa idinkugu mahad celinaya. Muuqaalkan idinka ayuu toos idinkugu socdaa. Si wada jir ah iyo si kali ah. Qof kasta oo noo soo duceyso oo dalabkaygii ducada ka soo jawaabta aad iyo aad baad u mahadsantiin. Wiilal iyo gabdho aad iyo aad baad u mahadsantiin. Culimada Soomaaliyeed ee masaajidyada ka ah imaamada iyo horjoogayaasha ee noo soo duceey aad iyo aad baa u mahadsantiin. Waa laga yaabaa inay intaas ka badan yihiin laakiin sida ay soo gaartay waa Hargeysa, Gaarisa iyo 3 masjid oo xamar ku taal. Inta kalena way mahadsan yihiin. Hooyaday habeen hore maqribka iyo cishaha looga soo kala duceeyay. Inta hadda soo duceey rabto hadda ducada soo wada idinkana waa mahadsantiin. Cajaladaad aad ku jirtaa dadka loogu mahad celinayo. waxaa kaloo rabaa in aan si gaar ah u xuso dadkii sida gaargaarka ahaa noola soo xiriiray iyo sidii gaarka ahaa noogu soo duceeyey iyada oo muuqaal la ah. Hinda shaxshaxley ayaa ugu horeysa gabar walaashay marna dumaashadeeya oo London degan oo ayadu si gaar ah noogu soo duceysay isla maalintii aan ducada dalbadan. Fartuun Birimo fanaanadeena ayaan u mahad celinayaa oo cod ii dhaaftay iyadana Canada joogta. waxaa kaloo mahad celin gaar ah u celinayaa fannaankeena majaajiilisteena weyn ee qaran Xaynoosh Sanqoole oo na soo wacay annagoo weliba isbitaalka joogno oo hooyo la joogno hooyana xataa salaamay inkastoo ay daciif ahayd oo ayna salaanta aad uga qaadi karin salaama. waxaa kaloo u mahad celinayaa walaalkay Daahir Calasow oo qoraal ii soo qoray oo hooyo igu weydiinayo kadibna markaa abdheed gareeyay isla habeennimadii qolkiisa oo kumaan kun saarantaano ma aanan ogeyn laakiin live asaga iyo asxaabtiisa iyo dadka ku xiran kumanaan iyagoo aan noo soo duceeyay. waxaan halkan iyadana aan ka gaarsiinayaa dhaqaatiirta Soomaaliyeed hadday ahaan lahaayeen Muqdisho, Garowe iyo waxaan ka xusi karaa Muqdisho, Puntland iyo Somaliland jooga. waxaan kaloo xusayaa dhaqaatiirta Soomaaliyeed ee jooga wadankan UK iyo kuwa jooga wadamada kaleeto ay ka mid yihiin Sweden. hilmaame hadalku ma jiro cidii aan si gaar ah ila hadasho oo aan hilmaamay ha iga raalli ahaato kunjar. laakiin muhiimaddu waxay tahay sida aad qalbigeena u dhisteen aniga iyo qoyskayga, aniga iyo walaalahay, aniga iyo caruurtayda, aniga iyo waalidkayga kale. habaryartay Xaliima nala joogta oo Manchester ka timid Xaliima Isla Cumar oo hooyaday la dhalatay. habaryartay kale Maryan ayaa iyadana soo salaantay abtiga Yaasiin caruurtiisa. waxaa joogta walaashay Maana oo nagu aaba ah oo baxdeena kaleeto curad u ah. waxaa jooga walaalahay aniga ila dhashay 2 gabdhood soo dhaweynaya maalin dhaweyd idin soo duuban laakiin waxaa ka daba yimid Najma oo Arizona Mareykanka ka timid iyo Cabdiqaadir oo Texas ka imaaday Mareykanka. dal iyo dibad waa iskaaga imaanay laakiin waxaan rabaa inaan idin dareensiyo ma garanayo qaab kale idinku dareensiyo sida aad qalbiga noogu dhisteen, sida aad garab istaag iyo wehel noogu noqoteen ducadeena, sida aad dalabkayga degdeg ah uga soo jawaabteen, sida boqolaalo kun idinkoo ah oon is ogeyn qof walbaba oo duco kal iyo laaba aan noogu soo dira. wax kale oon idin dhaho ma garanayo laakiin waxaan rabaa inaan idin iraaho jasadiina janno allaha ka dhigo. qof kasta oo islaama meesha oo u socdo ama jecel yahay inuu helo waa janno. wax la isugu duceeyo janno ugu sareyso. ducada markaan sii jajabiyo qof kasta oo walaala oo noo soo duceeyay iyo kuwa noo soo duceey rababa dhib hadduu jiro oo idin haysta Ilaahay ha idinka qaado. hooyaday ducadii waa anfacda oo sidii hore waa dhaantaa ayadoo aan gacanteeda waxba ku cunayn, ayadoo aan waxba cunayn aad soo duceyseen maanta gacanteeda ayaa wax ku cunaysaa. taasina waa wax Ilaahay looga mahad celiyo idinkana laydinkaga mahad celiyo sidii kal iyo laabta ahayd ood iigu soo duceyseen. dadka muslimiinta ah waa dad iimaan leh oo diin leh oo faith leh waay. qofkuna markuu diin leeyahay wuxuu garanayaa weynanka iyo qiimaha ay ducada leedahay. aniga waxaa laygu soo koriyay guri jumco kasta qamiis jumco soo galayso quraan laga akhrihayo. guri occasionally 3 bilood ba xoola lagu qalaayo.
guri martida laga soo dhaweeyo, guri ehelka iyo qaraabada ku xiran yihiin, guri sadaqa laga bixiyo. haddaad i aragtaan marka hadda wixii ka horreeyay iyo hadda taagan iyo hadda kadibba anoo duca dalbanaya, ogow qofka qaabka lagu soo koriyo saameyn ayaa ku yeelataa si kasta oo adduunka meel kasta oo ka gaaro, heer kasta oo joogo, iyo si kasta oo yahay. Aniga xataa codkayga inta hore waa ka dheerdheeriya, waa fahmaysaan wejigayga iyo codkayga. marka walaalayaal, jisadiina ilaahay jannaha ka dhigo, inta baahan ilaahay waxa siiyo, inta xanuunsan ilaahay ha ka dulqaado, inta dhibaato iyo ciriiri adduunyo oo yaryar ay haysato allaha u fududeeyo, inta ciriiri waaweyn oo haystana allaha u fududeeyo. waxaadna ogaataa isku duubnida iyo soomaalinimadu waa wax weyn. waxaan ku faraxsanahay in aan weligay qof Soomaaliya soomaalinimadiisa iyo inaan qofkaas garab istaago iyo inaan qofka xaqa ku taageero inaan weligay shaki leegana geli karin. tiina maanta abaalkeedu waa hela oo ducadaydii baad si degdeg uga soo jawaabtay. marka aad u mahadsantihiin anoo ku hadlaaya magaca hooyadayda, magaca walaalahay wiilal iyo gabdho, magaca habareertay Xaliimo oo ay ag fadhida, magaca habareertay ilmaha ay dhashay, magaca abtiyaasha iyo ilmaha ay dhaleen, magaca qoyska reer Weheliye Cadow iyo reer Islaaw Cumar Cali Maqul, iyo inta kale ee soo raacda ee xiriir la leh ee xidid ugu tallaalan yahay. waxaa idin leeyahay waa idinka qabnaa, waana mahadsantihiin. jisadiinana janno allaha ka dhigo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.